kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena hadduu allaydma waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay xukuumadda Ciro oo bilowday qorsho ay hubka uga dhigayso beesha Gadabursiyo oo laga cabsi qabo in ay toos ugu dhawaaqdo Awdal State of Soomaaliya iyo guud ahaan ciidamada Somaliland oo si toos ah u bilaabay beegsiga dhalinyarada Gadabursi. haddaba maxaa ka soconaya gobolka Awdal waxaan idin wadaagi doonaa warar iyo macluumaad xasaasi ah intaasi ku aadan. qodobada kale waxaa ka mid noqon doona saraakiil ka tirsan Somaliland kana soo jeedo heeb ahaan Gadabursi oo ku biiriyo kacdoonka jamaahirta Awdal State. haddaba gobolka Awdal miyuu noqon doonaa gobol si rasmi ah kaga go'o Somaliland? maxay tahay gadoodka dadkan ay qabaan iyo dowlad deegaanka oo garab istaag weyn u muujiyay beesha Ciise kana markaas uu kuna wareejiyay hub iyo ciidan awood leh? wararka iyo wixii nagu soo koray ayaa daawo doontaa soo dhawaada saaxiibayaal. haddii aad saaxiib nagu cusub nagu sabir muuqaalka like aragtida waxaa qaybta hoose faalada dadweynaha ugu rabaan ku bilaawno wararkeena. xukuumadda madaxweyne Ciro ayaa bilowday qorshe ay hubka uga dhigayso beesha Gadabursi iyada oo laga cabsi qabo in ay toos ugu dhawaaqdo beeshaasi Awdal State of Soomaaliya iyo guud ahaan ciidamada Somaliland oo la soo warinayo in si toos ay u bilaabeen beegsiga dhalinyarada Gadabursi. sirdoonka Somaliland ayaa bilaabay inay gobolka Awdal ay ka bilaabaan dhaqdhaqaaq lagu kala jarayo dhalinyarada si hoos loogu dhigo kacdoonka ay wadaan beeshaasi. haddaba waxaa wararku iyo sidoo kale intaasi ku sii darayaan in dhaqdhaqaaqa ka soconayo gobolka Awdal iyo gadoodka ay muujinayaan beeshan Gadabursi in uu yahay mid xargagoosanayo xukuumadda Ciro ayaana qaati taagan. waxaana ay xukuumadda madaxweyne Ciro ay doonaysaa qaab walba oo ay kaga hortagi karto kacdoonka in uu gaaro heer Awdal ay raacdo dhabihii waqooyi bari Soomaaliya isla markaasina ay noqoto maamul ka madax bannaan Somaliland oo garabkeedu uu ka baxo gobolka Awdal. waxaa rajadii iyo sidoo kale diiladii ay ku doonaysay inay ku hesho madax bannaani ay ku sii ridi kartaa god weyn. waxaana hadda ay Somaliland ay cudud ciidan iyo sidoo kale mid dhaqaale isugu geynaysaa sidii beeshaasi kaga hortaagi lahayd kacdoonka ay ku doonayso inay ku dhawaaqdo waqooyi bari Soomaaliya maamul la mid ah oo ah Awdal State of Soomaaliya. ciidamada Somaliland ayaa sidoo kale si gaar ah sirdoonkoodu waxaa la sheegayaa inay bilaabeen inay beegsadaan dhalinyarada iyaga oo gobolka Awdal magaalooyinka ay Boorama ka mid tahay iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee gobolka waxay ka bilaabeen si gaar ah dhalinyarada loo arki karo inay hormuud u yihiin kacdoonka iyo dhaqdhaqaaqa soconayo ee gobolka ka soconayo inay bartilmaameedsadaan iyaga oo si gaar ah dhalinyarada loo bartilmaameedsanayo kuwa haldoorka ah aqoonyahanka iyo kuwa markaasi waxgaradka ah ee ka gadoodsan gabadfaladii ciidamada Somaliland ay ka geysteen magaalada Boorama markii ay taagneed xiisadda reer Boorama ku diidanayeen bandhiga buugga Xeer Ciise. haddaba macluumaadkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in xukuumadda Somaliland ay qaaday tallaabo qariska xornimo ah oo loo arki karayo inay abuurto ismaaciil shacabka reer Awdal iyo sidoo kale Somaliland. waxaana tani mar walba ay sababi kartaa in xaalku uu faraha ka baxo. geeska kaleetana saraakiil ka tirsan Somaliland kana soo jeeda heeb ahaan Gadabursi ayaa waxaa la soo sheegayaa inay ku biireen kacdoonka jamaahirta Awdal State iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay sii xoogeysanayeen cudurda ciidan ee ku biiraya kacdoonka jamaahirta Awdal State isla markaasina ciidamo Somaliland ka tirsan si toos ay kaga soo baxayeen garabka Somaliland ayaa hadda kacdoonka waxa marka ka dambeeya ku sii biirayo xubno cusub kuwaasi oo saameyn xoog leh ku leh marka la eego siyaasadda Somaliland haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga. wararka ayaa sheegaya in saraakiil ciidan oo la garanayo ay ku biireen dhowrkii saac ee lasoo dhaafay kacdoonka ay beesha Gadabursi ee ka wado gobolka Awdal iyada oo ay garab istaagayaan jamaahirta reer Awdal. waxaana hadda sanadiinta dhaqanka ay u sheegayaan saraakiisha Awdal inay isaga soo baxaan Somaliland isla markaasina ay ku biiraan kacdoonkooda oo ay garab istaagaan beeshooda si xal loogu helo isla markaasina ay cadaalad u helaan dadkii lagu xasuuqay gobolka Awdal oo militariga Somaliland iyo sidoo kale ciidamada Djibouti lagu eedenayo. isku soo wada duube ciidamadan ama saraakiishan ka tirsan ciidamada Somaliland inay ku biiraan beelaha heebtoodu ay ka soo jeedaan isla markaasina ay ka baxaan garabka militariga Somaliland ayaa waxay muujinaysaa burbur xoog leh oo ku yimaaday Somaliland. burburkaasi oo la xiriira burbur ciidan haddii shalay Somaliland siyaasad ahaan ay u burburtay marka la eego inay maareyso xiisadda gobolka Awdal maanta waxay maraysaa inay u burburto Somaliland xiisadda gobolka Awdal ka taagan si ciidan ahaan.
geesta kaletana daawadayaal haddii aanu fiirino markaan waxaanu eegaynaa warbixin ku saabsan dowlad deegaanka Soomaalida oo si toos ah ugu soo biiray xiisada ka taagan gobolka Awdal. Dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la soo sheegayaa in garab istaag weyn ay u muujiyeen ciidamada beesha Ciise iyaga oo ay ku wareejiyeen hub iyo sidoo kale ciidan awood leh. Arrintan ayaa muujinayso in beesha Ciise ay dhowr dhinac ay garab ka helayso marka loo eego dagaalka gobolka Awdal. haddii gadabursi ay ka gadoodsan yihiin Somaliland dowlad deegaanka Soomaalidu waxa ay garab ay ka helayaan Djibouti iyo sidoo aan iraade beesha Ciise waxay garab ka helayaan Djibouti iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida waxay u muuqataa beesha gadabursi in dagaalka lagu kala yeelay Somaliland ay markaasi aanay doonaynin inay si buuxda u garab istaagto halka beesha Ciisena ay garab ay ka helayso dowladaha Djibouti iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya beesha gadabursi ayaa ay suuragal ay tahay in garab toos ah ay weydiisato dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo ay su'aalo ay ka taagan yihiin haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo toos ah u dirayso gobolka Awdal si ay u taageeraan beel taasi oo dadku qaar ay calaamad su'aal ay ka keenayaan si kastaba ha noqotee gobolka Awdal waxa uu noqday gobol colaadeed waxa uu noqday gobol ay isku hayaan laba beelood oo sidoo kale beelna ay garab ka helayso laba dhinac beelna ay markaasi tahay beel markaasi baylax ku soo dhacday oo aan garabna ka haysan dowlad oo ku garab istaagto marka la eego isheesiga la xiriira gobolka Awdal gobolka waxa uu ahaa mid iska degan sanadadii dambe laakiin xiisada halkan sare gaadhay waxa ay bilaabatay markii banaanka ay u soo baxeen beesha Ciise inay isku daydo inay sheegato gobolka Awdal gaar ahaan degmooyin muhiim ah oo Lughaye iyo sidoo kale Seylac ah kuwaasi oo ah degmooyin marka la eego marka taariikhi ah oo beeshu buug ay soo bandhigayso buugaasi xeer Ciisena ah ay ku sheeganayso in iyadu leedahay gabi ahaanba deegaanka maadaama halka buuga ama xeerka halka lagu qoray ay tahay Seylac ay tahay inay ku soo bandhigto cidna aysan ka hor istaagi karin damceeda arrintaasi ku aadan Somaliland oo joojisay maadaama deegaanku iyadu ka harmiso ayaa waxa ay ku dhawaaqday beesha Ciise inay kala hortagi doonto talaabo military waxaana imaaday ciidan garab istaagan salaadiinta dhaqanka ee dagaalka ku dhawaaqay halka beesha Ciisena iyaduna dhinaceedu ay bilowday kacdoon sidoo kale dhaqdhaqaaq xoog leh Boorame oo markaasi caasimadu u ah gobolka Awdal waxaad ogeedeen inay ka dhaceen rabshado xoogan oo banaanbaxyo ay wataan dadka shacabka ah waxa lagu gubay xarumo dowladeed waxa sidoo kale la burburiyay goobo ganacsi dhammaan rabshadahaas waxa sal u ah arinta bandhiga buuga xeer Ciise oo ilaa hadda qir la kala joogo Somaliland waxay ku adkaysanaysaa in bandhiga buuga xeer Ciise oo Seylac lagu qabtaa inay halis ay ku tahay xasiloonida gobolka Awdal beesha gadabursi waxay ku adkaysanaysaa bandhiga buugan oo lagu qabta Seylac inay ka dhigayso Seylac inay leedahay beesha Ciise halka beesha Ciisena ay u aragto taariikh iyadoo ay leedahay oo la duugayo taasi oo ay dagaal ka xigto isheesigan ayaa sababay inay abuurmaan ciidamo maleeshiyad ah kuwaasi oo kacdoonada gobolka ka taagan hadda iyagu saldhig u ah waxaana ciidankan ay yihiin kuwo la magac baxay kacdoonka jamaahiirta Awdal State iyo sidoo kale ciidamada daacadda u ah beesha Ciise oo iyaguna qayb ka mid ah gobolka joogo isku soo wada duubay cabsi xoog leh iyo wajahaya dadka reer Awdal meelo ka mid ah gobolka ayaana goorsii horeysay laga barakacay gaar ahaan magaalooyinka la isku hayo